شيء قف كلا وحوليه هاي maxay diintu ka qabtaa barashada cilmiga saadaasha hawada alxamdulilah mas'alada saadaasha hawada jawgu siduu noqon doono kuleyl iyo qabow ama cimiladu sida ay noqon doonto roob iyo roob la'aan in la qiyaaso la saadaaliyay wax maxduur sharci oo badani kuma jiro laakiin mas'alada waxoogay iyadana aan faafaayo markay masaa'il adag yimaadaan xarajeenayana waxoogay u dulqaataan مسألة ومسائل كعلم الفلك هي التنجيم كحدقنت هي فلك الله حريروي علوم الفلك هي التنجيم كوالا بقيبوت وحل إلى علم التأثير يوحل إلى علم التسيير علم التأثير كوا حاوي السامين بإليهن دعوين كادون كأي مقادير بي سامين كليهن وحباب كقالوا من باب الحرام وي شركيات يكفريات بين قشاه قيب كلا سيدا اسمها علم التسيير بالي هذا بمعنى siday u socdaan xidigaha iyo jawiga tajribada bini aadamku mar walba ay joogaan dhacdooyin hore arkeen inay wax ka qiyaastaan taana tasyiir baa la yiraahdaa taa waxyaabo xidigaha loo sameeyay kamid tahay wa calaamaatin wa bin najmi hum yahtaduun xidigaha ay ku kala gartaan jihada ay u socdeen iyo jihada ay tahay xilliga habeenka hore xidigaha way soo baxaan xilligaana way dhacaan jihadaasaan u soconay gelinka hore bidixina qaban gelin midig bina qaban gelinka horteena ka iman waxa jihooyinka lagu kala garto waay badda markay socdaan xidigahaas ay ku kala garan jireen ilaahayna ku manna sheegtay subxaanahu wa tacaala saa darteed xidigu waa kala yiri qataadiya rag lamida laba ilaahay ugu talagalay saddex qorra samada inay qurxiso ziinatan iyo shayaatiinta in lagu tuuro oo madaafiic looga dhigo ugu kala cayrinaya qaarna gubayso dilaysa iyo jidadka iyo jihooyinka iyo xilliyada in lagu kala garto ولذلك عمر رضي الله عنه وارضاه بحق غيرك waxay ka warinayaan culimo badanna waa xasan ay leeyihiin in iyadoo caamur ramada xilliga abaarta adag ay dhacday iyadoo roob doon loo soo baxday inuu yiri waa xilligii thurayaaga ma la gaaray thuraya xidiga ururka la yiraahdo way manaazil baa jirta wal qamara qadarnaahu manaazisha 28ka ee afarta xilli toddobaad tajribada dadka bini aadamku soo noqnoqotay hadba xidigaha iyo sayrka sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdiilan bay kamid yihiin hadii sayrka tajribadii saasan arki jiray iyada wax sameynayna ahayn laakiin saasa la firi kara saasay dhici kartaa iyo ay tira tamaado waa la saadaalin karaa jawiga iyo cimilada iyo saadaashuna baabkan tasiirka kamid tahay walidaalika dhowr mawduuc baan ku wareejiyay inta wax ka badan qofka طالب cilmiga risaladan diktoorada leh at-tanjim wal munajjimuuna fasal dheer iyo baxthi dheer buu ka qoray waxa labaad ninka la yiraahdo ninkii sheekhayagii in walbaan ku ogaa Allah xifdiyo Sheekh Abdullah ibn Muhammad al-Ghunayman oo marjic xilliga annagu طالب ardayda jaamacad Madiina aan ahayn marjic aqeedadaha كتاب البخاري كتاب التوحيد صحيح يسا بركو شرحيي isaga laftiisa wuxuu kaga hadlayaa juska hore mas'aladaasi tanjiimkii xaraamta inaynan ahayno saadaalaytay laakiin intaas oo dhan shardi baa ku xiran dadka wariyaasha iyo dadka programka diyaarinay hal qadiyad inay ku tayiraahdaan way saasay dhici waa khalad waxa la filayaa waxa la qiyaasayaa waxa lagu wadaa waxaana jecel oo baraarujin lahayn wariyaashu inayna ka tagin erayga saasay noqon haday dhahan insha Allah waayo marar badan ma intay saadaaliyaan bay si kala noqotay kuwa badan waxaan garanayaa biri waa qoraxna dhahan markaan soo baxnay roob daadna qaaday waan garanayna marka qofka muslimka aqoontiisu waxay keenaysaa biri wixii dhacaya xaqiiqadiisa Ilaahay baa markay yiraahdaan saasa la filayaa saasa la qiyaasaya saasay noqon doontaa ama noqon kartaa insha Allah inay aadaabta islaamka ka muslimiin wariyaashu ilaaliyaan walaga doonay billahi tawfiiq